duco iyo garab istaag aan u muujinno gabadhan dada yar ee la nool xanuunka kansarka ee caloosha. Way ka dawoobi kartaa haddaynu la dadaalno, Ilaahayna la talo saaranno. Qoraalkan ayay inala wadaagtay. Waxay tidhi sidaan magacaygu waa Muniira, qof kaste waxaan ka codsanayaa inuu caawa isu duceeyo. Hooyo iyo aabbo waxay inoo yihiin waxa igu quruxda badan een haysano carruurnimadeena, balse anigu quruxdaasi man arag. Waxaan ku soo koray nolol foolxun, silic adduun wuu isoo dhammaaday, ila maantada lagu jiro. Farxadda waxaan ka raadiyaa meel amaan ka helaynin, ma lihi saaxiib, maana lihi walaal aan wax u sheegto 20 sano. Waxaan radinayay in aan helo maalin farxad dhammaystiran, balse maan helin. Waan ogahay dhammaantiin qaar waxay i odhan doonaan maxaad noloshada uga hadlaysaa, balse tani dhowr qof oo igala mida jira. Waxaan idinka codsanayaa inaad dadka dareenkooda idin sheegta, inaad dhegaysataan. Waxaa laga yaabaa inay tahay markii u dambaysay ee ay wax idin soo gudbiyaan. Si kaste oo noloshu igu noqotay, waan la tacaalay, qof adagna waan noqday. Waan joojiyey in aan sameeyo waxa ay hablaha asagay sameeyaan keliya, wixii dan igu jirto ayaan ku mashquuli jiray. Welig may dhicin in aan sharafta xafadayda dhawaco ama wax u dhimo. Si kaste oon u ahay inan yar, haddana waxaan ka fikiri jiray, haddaan wax xun sameeyo in ay xafadayda ku soo noqonayaan. Wax kastana waan ka fogaaday. Muddo 3 sano ah waxaan la noolahay xanuun. Waxaan tagay 5 dhakhtar, mid kastaba wuxuu i sheegay in aan leeyahay xanuunka kansarka kaasoo igaga dhacay caloosha. Uma sheegin welidkay, waayo maha iyagu kuwa i daryeela ama iga fikira, xataa hadday ogaadaan waxba igama qabanayaan. Noloshayda waan la dagaalamay intan karayay. Ugu dambayntii caawa in aan waxba qariyo ma rabo, waayo waa markii dambaysay eed i aragtan. Waxaan raadin jiray in aan mar helo nolol fiican, laakiin waan daalay. Waxaan ogaaday in ayna jirin wax ka qalisan caafimaadka. maalin kaste waxaan isweydiiyaa, goorma ayaad dhimanaysaa? Marka uu xanuunka iyo dhibaatadu igu badanto, waxaan ku ducaysta in Ilaahay adduunka i dhaafiyo. Sidaasoy tahay, haddana noloshaasi marmarka qaar waan ku farxaba, alxamdulilaahi. Caawa habeen igaga xanuun badan ima soo marin. Wixii igu xuma ayaan caawa sameeyey, balse isoo duceeya in Ilaahay naxariistiisa igu deeqo, insha Allah. Aynu u ducayno walaasheen, Ilaahay caafimaad siiyo, kurbada, xanuunka iyo murugadna la faydo. Maalmaha khayrka badan dartood Allah ku cafiyo, insha Allah walaal. Sii faafi si ay dad badan ugu soo duceeyaan. Magacaygu waa Maryan Adan Xaaji, halkan aad naga dawanayso waa Deeqsame.